ولي aysan dadku si weyn u wada fahmin marka laga reebo dalka reer galbeedka iyo gorsi ismaqiiqay ujeedka iyo waxa ka dambeeyay kacdoonkii kooxdii Wagner Group ee mar la sheegay inay qiil gelisay ilaa iyo sabtidii iyo jimcihii ay markaas ruuxday magaalada Moscow xarunta wadankaasi ayaa haatan waxa soo baxaya warar kuwaasi ka duwan kadib markii la sheegay in kooxdu haatan ay u jahaysatay wadamada gaashaanbuurta NATO isla markaana saldhigooda rasmiga laga dhigi doono dalka Belarus qaar kamida xilliyaasha iyagu maxallaliinta waaqiciga ee loo yaqaan kuwa dhexdhexaadka ee iyagu aysan madax marin afkaarta reer galbeedka isla markaana wararka meelaha kala duwan ee kala ka hela ayaa waxa ay sheegayaan in ay muuqato hanaan istiraatiijiyadeed oo laga yaabo in uu Putin degay taasoo ahayd in kooxda loo ekaysiyo in ay kacdoon sameeyeen si markaasi looga diga rogsiyo oo loogu dhigo meel kale haatan waxa la aaminsan yahay taas inay soo jijileeda ilaa iyo maalintii sabtida ahayd lama arag hogaamiyahoodii kooxda tan iyo intii uu sheegay inuu gaaray dalka Belarus Yevgeny Prigozhin waxa la aaminsan yahay inuu tagay magaalada loo yaqaan Minsk ee xarunta wadankaasi sida uu goorsi horeysay sheegay madaxweynaha dalkaasi Alexander Lukashenko oo madaxweynaha dalka Belarus haddaba madaxda qaar ka mid ah gaashaanbuurta NATO shir degdeg ah isugu yimid magaalada The Hague ee xarunta wadanka Netherlands ama Holland soo taqaanid ayaa waxa ay sheegeen in kooxda dilayaashoodii iyo kuwoodii ugu halista badnaa ee farta ka xidhnaa loona yaqaan inay si weyn u joogtaan iyo inay u dhigmaan ciidamo badan midkiiba badankoodii oo kumanaan gaaraya in loo soo diga rogsiiyay isla markaana looga qotomiyay baa la yidhi saldhig cusub gudaha wadankaas madaxweynaha Lithuania Gitanas Nausėda ayaa waxa uu yidhi haddii kooxda Wagner Group iyo kuwooda halista ah ama kooxeeda dilayaasha halista ah ay yimaadeen ayuu yidhi wadamada qarka inoo saaran taasi waxay noqon kartaa ayuu yidhi khasaarihii iyo khatartii ugu weyneed ee abid xasanuul dara ayna soo food saarta isagoo ku tilmaamay in haatan ay tahay in gacmo madow ay la hoyanayaan gaashaanbuurta NATO oo aysan fahminba khidada ayuu yidhi arrinta laga leeyahay shirka uu arrintaas ka sheegay 6 wadan oo tirsan gaashaanbuurta NATO iyo waxa dhex fadhiyay xogayahooda Stoltenberg kuwaasoo afka markaasi gacanta saaray Andrzej Duda madaxweynaha wadanka Poland ayaa isaguna garay in uu ka shakisan yahay tabaha Putin oo loo yaqaan Friedka degan la yiraahdo kaasoo la aaminsan yahay inuu yahay nin aamus badan hawl badan la qabta waxaana la aaminsan yahay in arrinta deerto ka rogo laba saaray noqotay kuna xumaatay reer galbeedku siday moodayeen iyo markii uu horeysay dabaaldegii uu isku bedelay mid gabi ahaan buu jagax ku damaanaya madaxdu waxa ay sheegeen in wararka iyo xogaha ay helayaan ay muujinayso in si degdeg ah loogu daro anshantayaasha heerka sare ee bishan Luulyo 11keeda ilaa 12keeda dhici doona marka shirka magaalada Vilnius ee dalka Lithuania ay shirka degdeg ah isugu yimaadaan madaxdaasi shirka sanadlaha isugu yimaadaan madaxdaasi tani waxa weeye arrin aad iyo aad halis u ah isla markaana waa cawaaqib xumo waana mid markaasi u eg inaan u baahanahay go'aan degdeg ah oo ugu adag ayuu ku celceliyeen Duda madaxweynaha dalka Poland oo argagaxsanaa kadib markii la sheegay in dhigta waran ay ku soo gaadhay madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin ayaa kol kale doobiyay isagoo hadalkiisa oo sanbadnay asaga waa markii afraad ee uu hadlo saddexdii maalmood ee ugu dambeysay kadib markii uu u muuqday in uu doonayo arrinta inuu kala jajabiyay isla markaana war cusub soo saaray wuxuu horta u mahad celiyay hay'adda waran wadankaasi ee waaxda loo yaqaan the Federal Service Intelligence taasoo ku tilmaamay in ay ka hortageen wuxuu ugu yeedhay dhiigga dadka Russianka isku daatan iyo dagaal sokeeye isagoo ammaanay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo sheegay inuu shaqadii ugu ballaadheed qabtay waxa uu yidhi waa idinka horta dadteen ciidanka dhinaca warwareynta iyo keenista wararka iyo ciidanka National Guard loo yaqaan ilaalada qaranka iyo kuwa kale amniga kuwiina gabi ahaan ba soo ururiyay xogta isla markaana goorsi horeysay iyagu keenay ayuu yidhi fagaaraha daaradda aqalka Kremlin wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan idin sheego inaad u hoggaansateen dhaartii isla markaana fuliseen axdigii aanad aqbasheen ayuu wadankiinu inuu yahay kan ugu sareeyo marka ugu dameysa waxaana uu sheegay in gabi ahaanba kor loo qaadi doono lacagta ayuu yidhi dhaqaalaha ee lagu bixiyo ciidanka gaar ahaan waaxda waran isagoo sidoo kalena balan qaaday in la sii doono xuquuq dheeraada iyo waliba waxyaalaha tashiiraadka ay u baahan yihiin haatan waxaa la sheegay in ilaa 25,000 kooxda Wagner Group la aaminsan yahay in loo rari doono dalka Belarus madaxweynaha dalkaasi Belarus Lukashenko ayaan qarsanba in kooxdu ka faa'iido doono wuxuu dadkani waa dadkii ugu horeeyay ee fiidda hore dagaalka joogay isla markaana afaafka goobaha la isku mutay iyagu fadhiyay waxaan ugu yeeray ayuu halkan ugu casuumay hogaamiyahooda inaan ka jalaabto xogaha ku aadan ayuu si loo dirro iyo waxa uu ku arkay halkaasi iyo barta la qaban karo ayuu yiri hogaamiyaasha ka kan iyo kuwa kale ee reer galbeedka hubkooda noocyadooda yihiin waxay hayaan xogta hubka la isticmaalo waxay kale hayaan waxyaalaha sirdoonka reer galbeedka ay ku dhaqmaan iyo sida ay dagaalka dadban ugu dagaalamaan maadaama la aaminsan yahay in khubaro kooban kaliya reer galbeedka ka joogto goobtaasi isagoo sheegay inuu sidaasi ugu yeeray dhanka kalena
xubno ayagu loo yaqaan xubnaha dhinac roora dawladda dalkaasi Belarus oo iyagu ku kacsan ahna mucaarad dibadda wareega oo dalka Shiiya cilaaqad dawla leh ayaa waxa ay sheegeen dhanka kale inay maxkamadda dambiyada dagaalka ee International Criminal Court ay u direen xog cusub ay ku sheegeen in la kala macaashay caruurta yaryar ee wadankaasi Ukraine waxayna sheegeen in caruurta Ukrainiyaanka asaliga ah ay dhaleen ee goboladii la qabsaday ee iyagu aan ahayn dadka Afruushka ku hadla gabi ahaantoodba xarun looga furay wadanka Belarus si loo askareeyo loona bedelo Yurubiyaanka gumaystaha ayaa yaqaanay in caruuraha dadka laga qaato ama laga dhaco kadibna la geeyo meel mishiin ah dhamaan waxay ka dhacday adduunka oo dhan tan oo kale ayaa lagu eedeeyay hadarta madaxweyne Lukashenko isagoo la sheegay in ka badan 2,000 oo caruur in la keenay dalkaasi si loo dhan rogo ama loo bedelo ayaa la yidhi dhalashadooda yahay dawladda Minsk ayaa si weyn u cambaaraysay waxa ay ugu yeedhay arrintaas oo ay sheegtay in kuwa qoray aysan ahayn muwaadiniin ka dhan qarankan ay yihiin iyagoo sheegay in caruurta bini'aadanka oo dhan ay si weyn sooga dhowraan isla markaana aysan ku xadgudbin haddana iyada oo Putin leeyahay isaga khiyaamiyay hadarta reer galbeedka kooxda Wagner Group isaga ka dambeeyay qaaqooda ama se isagaaba rabay arrintan inay sidaas u dhacdo ayna soo baxayaan 3 scenario oo mid ay tahay inuu ujeedka uu kala ahayd inuu kooxdan awoodeeda intay qabashada leedahay qabto isla markaana uu dad isaga u shaqeeya oo xitaa hogaamiyahoodu kamid yahay uu adeegsaday inay qaab kacdoon oo kale u sameeyaan si loo kala daadiyo laba inuu ujeedka uu kale labaad uu kala ay tahay in ciidankan la raro oo la geeyo Belarus si loogu diyaariyo dagaalka weyn ee soo socday gaashaanbuurta NATO iyo iskaga hor imaan doonaan Ruushka oo la filayo in loo qalab qaato wixii ka dambeeya horaanta 10 maalmood oo horeeyay bisha July iyo saddexaad oo ah in qorshihiisa kale uu ahaa in kooxdan iyo dadka wata oo dhan la ogaado cidda ay yihiin si loo kala ogaado la isku diro ama la kala daadiyo haddaba hogaamiyaha dalka Jarmalka Olaf Scholz isagu eegno qarcid la jafayo waxa uu sheegay in Putin uu awood dareeyay kadib markii kacdoon ay sameeyeen iyo kooxda ismarkaan ay mudaharaadeen laakiin wuxuu sheegay inuusan hilaadi karin waxa ku xigi doona iyo arrinta waxa ka dambeeya isagu hadlayay ayuu waxaan aamsanahay Putin inuu dibcay ama jilcay ayuu u sheegay wakaaladda wararka ee codka dalkaasi Jarmalka ku hadashay ARD laakiin wuxuu yiri waxaanan garanaynin in hanaanka ayuu yiri gacanta bira ku hayo wadankaasi iyo qaab dhismeedkiisu uu dildilaacsan yahay inay sidoo kale jirto ayuu arrimo kale oo la kasaynin oo qarsoon wadamada reer galbeedka oo markii uu risay dabaaldegayay ayaa haatan waxay u agtay inay talada ku xumaatay isla markaana ay meel ay u qaadaan wax la yihiin wagaanka kandaroore madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa mar kale aflagaad toos ku gamay madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin oo hadda ka hor wato ku tilmaamay inuu yahay nin dilaa haatan waxa uu sheegay inuu yahay nin markaas ahmaq wuxuu waa ahmaq adduunka oo idil oo dhan markaasi dhibaato aad u xoogan u galiyay lugaha ayuu kadib markuu bilaabay dagaalka wadankaasi Ukraine waxa uu ku tilmaamay inuu yahay madaxweynaha kan oo xun oo macangag ah wuxuuna sheegay in gabi ahaanba aysan ahayn ayuu yiri in ninkaasi loo jaxjaxo isagoo markaasi ku dhiirigelinayay dadka qaarkood in aysan wax taageera iyo wax haba yaraatee aysan u muujin ayuu yiri naxariis ah isagoo markaas ka hadlayay arrimaha dhinacaasi dhaxdir watrapelka wararka wacaalaha dhinaca diblomaasiyadda daawashana qiimaha badan وجان كجان دنيا دن إسلام رايكن كقلب كوكو تميان كتجي دونا وحوي إن أي حيران مركلة إسلام كان أتكيل على قطعين تي أيسار لهاين لنا أجابيضا لحديدة شبت تلفون هذا يكمبيوتر هذا حساو ذير اللي جليو دلك الشينها أيجو مركل يقول يسي حكي شيء إن دولة أمريكان كو أي سي مركز عشرين صدّن تو حنانك وحصار كجودها يقول الشيء إنت بيا قذا بيش الدم الصوص تلوليو جبي هم أمريكان كو حير الدونو إذا الأهم بأجاب كلنا على كمبيوتر هذا تكنولوجيا iyo telefoonada xasawda ee lagu dhajiyo uga imaanayay dalka Shiinaha iyagoo sheegay bedelka in la qaadanayo tubtii madaxweynaha dalka Mareykanka ku kursi horeysay soo qoray ee ku saabsaneed hanaanka horumarinta arrimaha agabka gudaha Nvidia Chief Financial Officer oo Colette Kress leeyahay oo asaguna maaxdaasi ka tirsan Nvidia ayaa sheegay inay tani sina Mareykanka ugu wacan tahay sina Mareykanka ugu xun tahay wuxuu sheegay in waqtiga fog ay Mareykanka u fiican tahay laakiin waqtigan dhow ay ma doonto hoos u dhac shaqooyinka iyo dhibaato aad u xooggan ay ku soo socoto kuna soo jiijileedahay kala gudbinta alaabaha iyo sidoo kale xaqiijinta arrimaha la xiriira tan ayaa imaanaysa iyadoo dhawaan idil aad u weyn ee ka soo baxday shirkii oo xogay arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Anthony Blinken uu ku tagay magaalada Beijing xarunta wadankaasi iyagoo sheegay inay soo saareen go'aamo waaweyn oo wax tar u leh ayaa leeyahay taasoo la sheegay inay aad iyo aad ay wax u tari lahayd marar badan